guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa qoraal uu soo saaray ku beeniyay in la diyaariyay muushin ka dhan ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. qoraal la soo dhigay bogga golaha shacabka ayaa lagu yiri sida tan: waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagaynaa in ay been abuur ay tahay wararka lagu daabacayo baraha bulshada oo ah in maalinka Sabtida ah xilki qaadis lagu sameyn doono ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Master Rooble, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka golaha shacabka ka soo baxay. waa in bulshadu ay ka fogaataa wararka been abuurka ah. ujeedada kulanka maalinka Sabtiga ah waa dhageysiga khudbadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalinka Sabtiga ah oo ku beegan 1 bisha May uu madaxweynaha hortagi doono golaha shacabka. kulanka ayaa la sheegay inuu gaar u yahay dhageysiga khudbadda madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo. khudbaddaas ayuuna madaxweynuhu kaga laaban doonaa muddo kororsiga uu hore u samaystay ee 2 sano ahayd. hadalka guddoonka golaha shacabka ayaa imaanaya xilli aad loogu wada hadalhayo aaladda ay bulshadu isticmaasho ee baraha bulshada oo horaantii lagu faafiyey warar sheegayay in xilka laga tuurayo ra'iisul wasaare Rooble. tan iyo markii uu xalay khudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, shacabku waxay aad u hadalhayaan xaalka uu ku dambeyn doono dalka iyo nooca doorasho uu aadi doono Soomaaliya.